waxaan ugu daran hada leey kari laayahay Kenya baa leey kari laayahay bariga horena Kenya ma baan la hadli jirin حتى كوا دجال كلا ديارنا يكمين يجري جري بري دجال كيسبن سبن إلى جلاي وحلي يجري بهرتا إثيوبيا عدي بدنه إثيوبيا أمريكا سوسارن كينياتون وحدي يجري هذا إثيوبيا أمريكا سوسارتان دول كNFD أنا قن دجال جرين هاي نكون رجينا ما بدجال مجلاين هو وحدي يجري ما ميليتري كمان دوس ما الله دراي إذا ما البوليس كلا دراي بوليس كحافظها جوجا دت كان بوليس كانوا يجري أنا أدري لهنا وحبا أنا أدري أمانة اللي نيكري لا بدأني يقول كأني وهم حاربتين ما سلوا عليو أنا محاكم مشغول سنة هاي إنها أسكون مشغول سنة مركب حاسو دام وحال ربع أنت لقى بحو إن ضدك أي هل شنيدو هل كذا بقرة إلى شطاي هل بقرة سميس حكم كما كدرنا وحكى الله إن إسلام كحكم كيسمحوا ياه إن مضح الله سميستو إمام هل إلا سميو وواجب وحي كلو أنت أسكب حسن قف كيس مسألة طالع سيد عمر وحدي جري إسلام ما مجري يسوع إلا إن يدك الرسمان مؤجي لا إسلام بدون جماعة وما دنا مركين لو الرأي وبانتاي ولا جماعة مجلس بدون إمارة هدي عن مام الله سمين ولا إمارة بدون طاعة هدان قفك هجانك الله سمين وركي ساعة لا مغلين أيضا جماعة مجلسه هساس يلا دو يراد مثلا قفك هجانك وحاله بقى قفك هجانك وياه إنه هي يراده لكن هدي الله السنمو اللي يراد مايا أنا ما يلا marka fawdan laga ma baxayo cid wax noqonaysa ma jirto marka ayadoo shakhsi iyo hebel arintu ay ahayn ka mabda ahaan ka mas'ala ahaan aynu isla fahamno ummadda islaamka ahi in ay hogaan yeelataay waa waajib kitaabkay waajib ku tahay sunnaday waajib ku tahay ijmaacay waajib ku tahay oo laga soo bilaabo xilliga nabigu dawladiisa asaasay hal marna lama arkin mowqicaas oo imaamnimada ah oo banaan oo la yiri sanadkan aan iska dayno imaam yaan samaysanin dadku shacab ha iska ahaadeen xukunka qof uu qaban ma dhicin haduu mid tago mid kale baa bedelay haduu mid tago mid kale baa bedelay taas waxay ku tusaysaa ahmiyada ay leedahay wada jirku iyo in hogaan la yeesho marka meeshan maamuladan aad maqlaysaan hebelow ah likulli qabilatin fiha amirul mu'minin kooda u jooga wa minbarna wayleeyino television ay samaysteen maamulkaas television ma laho hayay idar xageen rabtaa waxay igeysaa maxay leeyahay televisionka oo Jubbaland waa kana maanta oo Jubbaland lagu haya hay koonfur galbeed u wareeg koonfur galbeed waa kana asagana minbar waa kana television Puntland aad waa ka likulli qabilatin fiha amirul mu'minin kina uu jooga wa minbar marka amirul mu'minin yaal badan lama rabo waxa la rabaa hal xabal rabaa maxay yeelay hal xab hadii la heli waayo wax soconaya ma jirto shinida ma ka aqal xunay shinida waxa lay boqorad waxa jirta way ka weyn tahay shinida inteeda kale boqorada oo shinida marmara waxa isla dhashay sanad barwaaqada keenaysa laba shinni oo waaweyn oo sifadii boqornimada wadata shinnidii markay arkaan labadan isla waaweynay sifadii boqornimada lagu noqon lahaa wadata xeer waxa uu degsan oo Ilaahay uu ku ilhaamiyay labadaas mid kamid ay dilayaan mid ay soo reebanayaan waxay diidayaan labadaas inay joogan haday labadaas joogan ciidankii shinnida ahaa ee malabka sameynayay ayaa iskhilaafay hadduu iskhilaafo boqoradana qaar raacaya boqoradana qaar kale raacaya haday taas dhacdana maxaa dhacaya bariga hore waxa la jiray shinni waxa la helaa markay iskhilaafto malabkeeda waxa la helaa shinni malabkeeda waxa la helaa markay iskhilaafto maxaa yeelay madayna iskhilaafin meesheeday ku jireen lama arkaayo tartiibtay malabkay ku fadhineen laakiin koo juq la soo siiyay banaanka loo soo saaray marka banaanka loo soo saaray koox kale laga soo deebixiyay dadkii meesha maraayay meeshii malabku ku jiray ay shinnidii la soo buriyay ay ku korkeeda ku xoomeen markaas meeshay marmare qof meesha maray wuxuu leeyahay meeshan wallahi malaba ku jira ma ku jira waaba la arkay malabkii marka la jabsanaa shinnidii masaakiinteedu waxa dhan waa la wareegay shinni markay iskhilaafto malabkeeda la helaa Soomaali markii sidaas ay nagu dhacday boqorro badan ay noo dhashay oo Soomaali ah malabkeeni marka waa la jabsaday qof kasta oo ku urkacsanaya dantiisa gaarka si ugu gaaro inuu dadka ku kicsado in la yiraahdo walaalow raali ahaw meeshaas shalay ayaan ku gownay oo aan aragnay qabiil u roonaadayna ma jiro cid wax u tartayna ma jirto dhalinyarada waxa laga faa'iideystaa intay caafimaadka qabaan markay dhaawacmaana aabahood iyo hooyadood ay ka dhaawacmaan oo ayaga ayaa daaweysta haday dhintaana aabahood iyo hooyadood ay ka dhintaane qofka dagaalka gali kama dhintaan qofkii dhintayna sariirtiisa ayaa laga taba oo ka maqan yahay marka ayaan wax been la isu sheegin dadkaan waxay u baahan yihiin in dadka la dejiyo in walaalo la ahaado meel loo kala socdo male lama kala guuraayo dhulkaan Ilaahay nagu abuuray lama kala jiidan karo marka intaan colaad iyo iscaay iyo rafaad oo dib aan ku joogi lahayn inagoo walaalo inaan ku joogno ay roontahay
laakiin aqliyada dadkeena waxa in badan ku bees garaysmay wixii ay soo arki jireen oo ahayd raganimada waxa loo yaqaanaa wax iska celi markaas meel wax la iska celiyo meel aan ahayn ayay wax iska celinayaan in wadankii la dhiso oo horay loo socdo hadii la diido wax iska celin ma taas kii diiday in wadankii la isla wado oo la isla lahaado oo ummaddu ay wada socoto kii diidani raganimo ma taas ayada ee raganimadu waxay tahay in wadanka wixii dantiisa ku jirto hatta hadii ay keenayso midda gaarka adiga ku ah inayna markaas dan ugu jirin laakiin danta guud ay dan ugu jirto waxa raba danta guud daraadeed inaad midda yar u liqdo laakiin hadda waan isdaba marsiinay waxaan leenahay bal inta aan danta guud iyo Soomaalinimo la gaarin anaga maamulkeena qabiilkeena xaafadeena maxaan ka helaynaa koow laba saddex markaan fiirino ummadda guud ahaan waxbay ka heli waxaas ay ka heleen waxba inaga soo gaari laakiin wax ay yimano inaga inoo gaar ahood toos inoogu imaanaya meesha kama muuqdo saas daraadeed aan qaadacno wax dan on kaleena ma jirto qofkii sidaas sameeya asaa ku ceeboobi doona maxay ilahay hadda bulshada Soomaaliyeed waxay u badan tahay dhalinyaro boqolkiiba 70 waa dhalinyaro marka dhalinyarada waxa la yiraahdaa odayaal waqtigoodii soo qaatay waqtigiina ayna qaadanin oday sii socdo waqtigiisa dhamaystay yaa hadda wuxuu rabaa hadana siyaasad kale inuu dhalinyaradii iyo dadku yiraahdaye ani soo raaco saay adeer waqtiga waad soo qaadatay wadankeena inaan dajino oo caadi uu noo noqdaan rabnaaye hadaad wax maslaxa oo ummadda u haysa aad haysana keen hadii wax qalooca ummadda si kala fogeyn aad wadidna naga raali ahaw in la dhaxal rabaa marka ummadda xilliga ay gaari lahayd qofka gardana naga raali ahaw inay dhahdo ayaa soo dhow nabiga sallallahu alayhi wasallam ida haabat ummati an taqula lidh-dhalimi ya dhalim haday ummaddeedu ka cabsato qofka gardana inay tiraahdo waad gardarantay naga joog fa baadinul ardi khayrun laha min dhaahiriha dhulka hoostiisa oo dhimasho ayaa uga khayr badan dhulka korkiisa macna inaad dulli ku noolaato waxa ka fiican si ciise iyo sharaf intaad ku dhimato dhulka hoostiisa inaad gasho marka ummadda islaamka ummad dulli ogolaata ma waxoogaa waa la yira cadaadin karaa inta isaga soo aadayso laakiin maalinka dambe waxay u imaan doontaa inay dhahan ma yeelayno waxaas haday mar dadku soo jeestaan oo ma yeelayno dhahanna cid wax ka qaadaysa ma jirto ida shacbu yawman arada al-haya shacbigu haduu maalin go'aansado inuu noolaado noloshuna ma aha yaani nafa ay ugu jirta ma aha nolosha lagu sheegayo waa nolosha xurriyada qofku waa inuu xor ahaado hadii laakiin la adoonsanayo oo cunto la siinaayo oo cabitaan la siinaayo oo leeyahay maxaa ka maqan adiga waad cunaysaa waad cabaysaa waa kan oo masiirkiisa oo santala ku lahayn oo xurriyada suurab uu ahli kareynin oo dad uu ka cabsanayo taasi nolol ma aha marka nolosha waxay tahay waa nolosha runta ah ida shacbu yawman arada al-haya fala budda an yastajiba al-qadar ولا بد للقيد أن ينكسر ولا بد للليل أن ينجلي مرش عركاس يعني تذكر حركها كل حرحرا لا بد وين يكلا قوان مركز دمبه ويلي هذا ما يلين ظلمك هبينك مجدي سنة مجدي لجوجر مايه ولا بد للليل أن ينجلي هبينك وينه في الماء مال لوبحه ما تحلق عن مال لوبح الحين أو حق وظاهر لها oo baadilku banaanka ku soo dhici laha oo qofkii baadil wada ka ugu dhow u dhihi laha baadilkaaga nagala leex ma rabno taas ay dadku u socdaan marka ilaahayna gaarsiyo taas ayada ummadeennana aan u dhimrino aan u naxariisano wax kasta oo kala fogeyn aan ka ilaalino wax kasta oo walaaltinimada xoojinayana aan isugu keeno ilaahay subhanahu wa ta'ala aan barino inuu ilaahay ummadeena isu soo celiyo oo ummad yaani walaala oo islaamkaas ku dhaqanta ilaahay inuu naga dhigo rabbana aatina fid dunya hasana wa fil aakhirati hasanatan wa qina adhaban nar ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min adhabika نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيضا أولوجه أهمية أولية هي برنامجك برشة كحريرته السوشيال ميديا يعرفها كسابسن وحلقة عن عصري عن نقضي آلة رنتيات ياد سامين أولى أيها وحن برشة الصوماليات ملك السعودون كجوجان aan la wadaagayna inaan u furnay page ku furan magacayga oo leeyahay page-ka Sheikh Cabdilxay oo YouTube-ka ah kaas oo la soo gelin doono barnaamijyada aan ugu talagalay in bulshada lagu wacyigeliyo oo ay ka mid tahay khudbada Jumcada ee isbuuciiba mar baxda ee magaalada Muqdisho Masaajidka Umar bin Khadaab ka baxda iyo waxyaabaha kale ee isleenahay baahi ayaa markaas ummaddu ay u qabtaa inaan yaani aan u soo bandhigno waxa kale oo jiri doona su'aalo oo runtii dadku ay aad yaani isu weydiiyaan oo ana isu weydiiyaan inaan fursad u siino Facebook-ga inaan isbuuciiba mar aan ku soo bandhigno mowduucyo markaas aan isleenahay muhiim ay bulshada u yihiin ayagoo wixii su'aalaha ay qabaan ay halkaas ku soo qori doonaan kadibna aan jawaabta
usoo dhigi doono page-ka YouTube-ka aan ku leeyahay page-ka Sheekh Cabdilxay marka dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin sida aad uga qayb qaadataan wacyigelinta bulshada kolba barnaamijka qiimo leh meelahaas lagu soo bandhigo marka aad uga sii qayb qaadataan iyo dareenka runtii wacyiga sareeya aad yani kaga falcelisaan hadba markii duruufta iyo mawduucyada halkaasi ka jira la maraayo marka waxaan leeyahay ku soo dhawaada page-kaas insha Allah taala waxaan rajaynaynaa duruus laga faa'iideysto iyo macluumaad muhiim u ah nolosha dadka isla markaasna diinteena islaamka iyo faafinteedana qayb weyn ka qaadan doona inaad halkaas ka heli doontaan marka saa ula socda waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh